بسم الله الرحمن الرحيم ugu halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ha joogto waxaan kale oo ka hadlayaa hadii Ilaahay awood leh uu noo idmo bashidaalka Soomaaliya ku jira bishan toddobadeedii waxa ka dhacay shir London ka dhacay horta shirkaas laga hadlayay badroolka waa wax guul Soomaaliya u soo hoyatay صح iyo khalad midna anigu oran maayo laakiin magaca shidaal ba hadii la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan shidaal badan iyo khayraad badan bay leedahay ilaa kontomeeyadii ba la baarayay anigoo wiil yar ah ayaan xusuustaa in oo ku nool magaalada gobolka Nugaal magaalada Ayl in shirkado waaweyn oo Mareykan iyo isugu jira European inay baari jireen dalka Soomaaliya waxay ka heleen shidaal fara badan bay ka heleen meesha la yiraahdo Nugaal Soomaaliya oo dhan waa ku jira way soo noqdeen haddana oo dhowr iyo 60kii ayay haddana baareen shidaal badan bay ka heleen markii aan ka hadlo Puntland siiba Nugaal iyo gobolka Bari Xaafuun iyo Hurdiya iyo Baargaal iyo dhulka Ilaahay wuxuu qadaray in markii dawladdii kacaanka ahayd inay dhalatay dawladdii hore oo ku tarajida inay arintaas ay bilowdo oo wada xaajood siiba dalka Mareykanka uu socdo kacaankii ayaa dhashay kacaankiina waxay ku qaadatay waa la socotaan shuuciyad iyo hanti wadaag iyo waxaas ay galeen hase ahaatee mar dambe ayay garowsadeen inay lama huraan tahay in Soomaaliya shidaalka laga soo saaro waxay bilaabeen marka inay u yeeraan shirkadda la yiraahdo Conoco iyo Philips wata shahaadadeedii ugu dambeysay oo aan ka soo qaaday hadda waxay saacadan la joogo diyaar u yihiin wax fayga maahan wax kale maahan inay soo saaraan shidaalka Soomaaliya oo Nugaal ku jira 40 ceel oo la yiraahdo Kalis 1 ilaa Kalis 40 marka waxaan ku faraxsanahay horta bal dawladdan hadda joogta mucaarad iyo muxaafid bahayeelatay inay horta wax bilowday magaca shidaal la yiraahdo magaca shidaalka la yiraahdo oo Soomaaliya ku jira oo ka buuxa waxa uu hadda diyaar wuxuu u yahay midka Nugaal iyadoo la soo saaray lahaa dawladdii dhexe ee Soomaaliya ugu dambeysay ay bilowday 80kii aakhirkiisii ayna la soo saaray lahaa shidaalka ugu horeeya badda laga dhoofin lahaa 1990kii ayaa dawladdiisa la socotaan ba dagaalkii Sokoye ka qarxay Soomaaliya alaabtoodii ay wax ku qodi lahaayeen oo riiga qaaliga ah uu ku jiro waxay ka rarteen dekada Boosaaso ee dalka Soomaaliya waxa ka dameeyay oo kaliya dagaalkii Sokoye iyo burbur iyo istijiid dalkana waxa la soo galiyay shirkado badan oo tuuga ah oo macdan guranaya qaarkood waxa lagu sheegay shidaalku wuxuu leeyahay sign lagu yaqaan waxa la shidaalka waxa la shidaa gas ba marka hore aan waxba tarayn ayaa laga saaraa oo waxa weeyaan dab baa la shidaa dabkaas uu caan ku yahay mar hadii la ceel shidaal macdantu iyadu waa moogtahay waa wax iska solid ah oo adag oo ciid iyo dhagax ayaa la guraa oo iyadu waa wax la yaqaan Soomaaliya hadii meel riig laga taago oo uu yahay mid macdan guranaya hadii dab ka bixi maayo hadii uu shidaal yahayna gaaskaas aan waxba tarayn ayaa dab loo shidaya kadib baa biyaha laga bixiyaa wixii kale wasakh laga bixiyaa shidaalkii oo saafiya oo dareera ayaa markabka lagu shubaa oo tuubooyinka inta la marsiiyo lagu shubaa midaas Soomaalida waa u sheegayaayo waa iska aqoon guud hase ahaatee anagu waxaan leeyahay isbedel baa ka dhacay dalka Puntland madaxweyne cusub baa la doortay nin dhalinyaro mutacallima waxaan leenahay shidaalka Nugaal waa diyaar Conoco iyo Philipsna waa diyaar oo waa u jeedaan shahaadadoodii waa ay tusay oo waxa weeyaan waqti dhaweyd baa isuukaya dameysay anigoo iska socdo oo aan dawlad iyo shirkad iyo midna ka socon baan u tagay hadda hawshii meel fiican baan gaaray gabagabo in loo tago madaxda ay u tagto dani inuu u tago waa waajib saaran weeye ummadda Soomaaliyeedna in laga saaro gaajada iyo fakhriga sidii madaxweynaha Farmaajo ayaa intii ku dhawaaqay waa wax aad loogu baahan yahay waa wax lagu farxo ummadda Soomaaliyeed dad jecel weeye waa dad wax wada noolaada caanahay weligood wada cabbi jireen iyo hilibkana wada cuni jireen
haddana meeshii ceel laga helo ama laba laga helo ama 30 laga helo ama 20 laga helo waa wadaagayaan waana bilow fiican oo aad loogu farxo ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay shidaal Soomaaliya ma ku jira iyo kuma jiro arintaas kontonkii baa la ogaaday ma xamaantay bilaamay baahan waxa shirkado yar yar ay bilaamayaan maahan Mareykanka shidaalka ugu quality fiican ama ugu qaalisan waxa iskale waxa la yiraahdaa numberka 76 baa la yiraahdaa Conoco and Philippines ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan Europe iyo America way garanayaan ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya hadii Puntland shidaal laga soo saaro waxa anfacsanaya xamar iyo shanta maamulba waa anfacsanayaan Puntland qayb bay ku leedahay si wanaagsan oo cadaalad ku jiro baa loo qaybinayaa oo aanu ku talinaynaa yeelina mayno ilmaha Soomaaliyeed oo jooga Baydhabo intuu gaajoodo iyo kan jooga maxaan ku dhadaa Cerigabo iyo kan jooga Bari iyo kan jooga Kismaayo iyo kan Baydhabo jooga iyo kan Beledweyne jooga intuu gaajoodo kan Puntland inuu caafimaad iyo waxbarasho iyo nolol fiican helo waa waxaan suurtoobi karin Soomaalidana waligeed wax ka dhacay maaha dagaal sokeeye waa la soo maray kaas waa tagay ninkii ku fakaraya qabiil iyo dagaal sokeeye dambe iyana waa nin waalan in la qabto weey dawladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay mucaaradka soo jiita la hadla kuwa ugu horeeya kuwa ugu dambeeya la hadla maxaa yeelay ninku haduusan mucaaradkiisa la heshiin karin hadii dal wuxuu ma qaban karo waxaan leeyahay kuwa mucaaradkana waxaan leeyahay khayraadka Soomaaliya hor istaaganina hadda caayidinina laakiin hubiya waxa hubisaanin waxa kan waxa la xadayo ma yihiin oo macdan la xadayo ma tahay mise wuxuu wax fayga oo wax saxan leeyahay oo badrool ah oo ummadda Soomaaliyeed ay horumar ku gaari kardo gaajada kaga bixi kardo aqoon darida kaga bixi kardo silca kaga bixi kardo kuwa hadda jooga oo ugu horeeya kuwa jooga ugu horeeya maxaan ku radaa xariyihi Nairobi Kenya baa hadda loo caga juleynaya ummadaas waxa weeyaan bilaha ugu horeeya meesha laga soo saari lahaa waa la dejin lahaa nolol fiican bay heli lahaayeen ugu dambeyntii waxaan leeyahay xildhibaanada iyo uu ku goodinaya sharci lama sameyn war laba sanaad joogtaan ummaddu way dooratay mas'uuliyad baan la saaray laba sanadood maxaa qabanayseen warqad la qorayo iyo meel la fariistiyo miis bil baa ku filan 15 bari baa ku filan 10 bari baa ku filan ma qabataan oo shidaalakan kala habaysan dawladda hadday daacad ka tahay inay shidaal soo saaraan midka Conoco oo awakaas qoraalkii wakaa waa diyaar weey anigoo shacab oo iska socda ayaa u tagay waa la hadlay qoraal baan u qoray waa waxaan ku radaa waa wada hadalay telefoon baan ku wada hadalay si kasta ugu wada hadalay diyaar weey sawayna og yihiin shirkadii waxa weeyaan diyaar weey waa labada shirkadood ugu weyn Conoco iyo Philippines inay ka soo saaraan Puntland waxa lagu xijinayaa marka kuwa dambe taa kaliya horta marka hore Puntland baa laga dhargaya waxaan leeyahay madaxweynaha la doortay oo dhalinyarada ah Saciid Cabdullaahi Dani waa kuwa han weynahay laakiin sayaanan kaan niyad jabin please don't do what they done the others kuwii hore waxay sameeyeen marin wadadoodii ka leexo shidaalka waa muhiim soo saar la hadal dawladda dhexe diyaar buu weeye saacadan hadii la yiraahdo way yeer qaadan mayo way yeer few months buu qaadanaya in lagu soo saaro markaasna gobolada kale laga soo saaraya ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto way ku farxaysaa waana wax la og yahay wax fayga baahan oo waa u jeedaan in waxa kan wax iska cad weeyo oo aanu ka hadlayna waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hamidood ummadda Soomaaliyeed ha isgargaad ummadda Soomaaliyeed ha guulaysato waxaan leeyahay arrintaani waxa weeyaan yaan loo kala harin maanta baynu runtii ogaan yaan loo kala harin